kulan wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelka Gold TV waxaad ku soo dhawaataan suuqii Janaayo maadaama xalay uu gabagaba noqday 25kii siix ee saameynta lahaa ee halkaasi ka dhacay ayaan idin soo gudbi doonaa waxaa jira 25 ciyaaryahan oo kooxooda ka tagay kooxo kale ku biiray hal kuwa kalena ay qandaraaska kooxooda u kordhiyeen bisha January waa bil ay kooxaha weyn ee aad iskugu diyaariyaan inkastoo ay siixiyo weyn aysan ka dhicin bishan Janaayo laakiin kooxaha qaarkood heshiis ay la gaareen xidigaha hadaba waxaan idin soo gudbi doonaa 25 ciyaaryahan ee kooxaha ee la soo sixdeen lambarka koowaad haddii aan ka bilaawno kooxda Liverpool waxay la soo sixatay ciyaaryahanka lagu magacaabo Takuma Minamino ay la soo sixatay xidigan reer Japan ayayna kooxdan ka soo qaadatay kooxda RB Salzburg ayayna ka soo qaadatay waa siix kale ay sameysay naadiga uu hogaamiyahan club ee Liverpool xidigan reer Japan ayaana waqti fiican la qaatay kooxdaasi ugu dambeynna Liverpool ayayna gacanta ku dhigtay waa suuqii Janaayo siix ay sameysay naadiga Liverpool waana siixeed ugu horeysay ay sameysay suuqani lambarka labaad waa ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ama Zlatan Ibrahimovic AC Milan ayuu dib ugu soo laabtay xidiga qabaarka ah ee reer Sweden Zlatan kooxo badan ayuu soo ciyaaray Inter Milan ay kamid tahay Silvana Barcelona iyo Manchester United Realka Mareykanka ayuu soo ciyaaray ugu dambeynna kooxda AC Milan ayuu dib ugu soo laabtay isagoo waliba kulman dhowr ah u ciyaaray wuxuu sidoo kale sameeyay gool qaar ah ayuu dhaliyay kooxda AC Milan tan markuu yimaadana kooxda Milan waxay ku jirtaa bandhig aad u sareysa waxyaabaha kale oo kamid ah ciyaartoyda loo soo saxiixay waxa kamid Erling Haaland ayaana kamid ah kaas oo ay xiiseynayso kooxda Manchester United Real Madrid laakiin ugu dambeyn wuxuu ku biiray kooxda reer Germany ee Borussia Dortmund ayuu ku biiray ciyaaryahanka Haaland ee lagu magacaabo xidigan ayaana Borussia Dortmund ku biiray isagoo imika gool dhowr u dhalay ilaa 5 gool ayuu sii marayaa xidiga lagu magacaabo Erling Haaland RB Salzburg ayaana ciyaartoydan ka soo qaatay 4 sano oo heshiis ah ayuu qalanka ugu doogay kooxda Borussia Dortmund waxyaabaha kale kamid waxa kamid ah ciyaaryahan Emre Can ayaa si rasmi ah kaga tagay kooxdiisa Juventus xidiga hore kooxda Liverpool Emre Can ayaana ku biiray naadiga Borussia Dortmund Juventus ee magaalada Turin ayuu ka hayaamay cariga Germany ayuu u habeegidistay ciyaaryahanka reer Germany ee Emre Can waxyaabaha kale ugu weyn waxay ahayd ciyaaryahanka lagu magacaabo Klozovikian Juventus ayuu ku biiray xidigan Parma ayaana laga soo qaatay 35 milyan ayuu ugu fadhiyaa kooxda kubadda cagta Juventus ciyaaryahanka lagu magacaabo Dejan Klozovic ciyaaryahanka lagu magacaabo waxyaabaha kale waxa kamid Alexander Nobel waa Nobel ciyaarahan Bayern Munich ayuu ku biiray kooxda Bayern Munich ayana xaqiijisay goolaha Schalke inay la soo sixatay waliba si xor ah ayuu ugu yimid kooxda Allianz Stadium ka arimisay ee Bayern Munich sheekooyinka lagu weynaa suuqa ee ay la calaamadeen waxa kamid Nathan Phillips oo Stuttgart ayuu ciyaaryahankaas ku biiray kooxda Liverpool ayaa xaqiijisay inay si amaha ciyaaryahankeeda Nathan Phillips ee ugu dirtay kooxda lagu magacaabo Stuttgart inkastoo Everton ay aad u xiiseynayay ciyaaryahankaas laakiin wuxuu ka doorbitay koox Premier League Tasiileed inay siiso kooxaha kale ee horyaalada kala duwan ee ciyaara sidoo kale waxa kamid Bruno Fernandes ciyaaryahanka ay hore kooxda Sport Lisbon una dhashay dalka Portugal ayaana si rasmi ah ugu biiray kooxda hogaamiye Ole Gunnar Solskjaer ee Manchester United Bruno Fernandes waa siix ay sameysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United si la mid ah Halo ayaana kooxdan la soo sixatay habeenkii xalay ah suuqii ugu dambeeyay ayaana sameysay sidaas waan ciyaaraan weerar ah waxaana ii sheeg loo keenay in uu buuxiyo booska ciyaaryahanka reer England ee Marcus Rashford kaas oo muddo dheer garoomada kaga maqnaa doona kooxda Manchester United dhaabac soo gaaray Asmir Bogovic ciyaaryahankan oo goolka qabta wuxuu ku biiray kooxda AC Milan Asmir Bogovic ayaana lagu bedelay Pep Reina kaas oo Aston Villa ay kaga mid noqday si la mid ah goolaha Asmir Bogovic AC Milan ayuu ku biiray 6 bilood ah ayuu la sii joogi doonaa kooxda reer Talyaani ee AC Milan waxyaabaha ugu waaweyn suuqa waxa tahay Inter Milan waxay sameysay siixiyada ugu waaweyn ee sanadkan Ashley Young iyo dhowr ciyaaryahan ayaa la soo sixatay kooxda kubadda cagta Internazionale Ashley Young ayaa kamid ah ciyaartoyda la soo sixatay kaas oo kaga yimid kooxda kubadda cagta Manchester United 9 sano ayuu ku qaatay garoonka Old Trafford ciyaaraha Ashley Young ugu dambeynna lamar 15 ay u dhiibeen kooxda kubadda cagta Internazionale Real Madridna Renan Jesus ayaa la soo sixatay ciyaaryahankan ayana dhameystirtay Renan Jesus kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda reer Brazil ee Flamengo ayana kala soo wareegtay 18 sano jirkan wuxuu ligi ku soo yahay doona ilaa 2026 ayuu garoonka Santiago Bernabeu qayb kaga sii ahaan doona Orzello ayaana sidoo la mid ah Real Madrid ka tagay Bayern Munich ayuu ku biiray ciyaaryahan 6 bilood ayuu nagi ku sii ahaan doona halkaas ciyaaryahanka daafac ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Bayern Munich ayuu ku biiray Victor Moses Inter Milan ayuu ku biiray
ciyaaryahankii hore kooxda Chelsea ee Victor Moses iyo si lamid ah kooxda Wigan wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Inter Milan sanadkan aad ay iskugu hubeysay iyadoo rabta in ay soo jirto musalsalka ku aadan kooxda Juventus oo muddooyinka ugu dambeeyay ku guuleysanaysay horyaalka dalka Talyaani. 12 milyan euro ayuu ugu biiray kooxda Inter Milan xidiga reer Nigeria ee Victor Moses. Christian Eriksen silma Inter Milan ayuu ku biiray ciyaaraanka reer Denmark qadka dhaxan ugu ciyaaray naadiga Tottenham Hotspur. Christian Eriksen koox badan ayaan aad u xiiseyn waxaana kamid ah Manchester United oo la xiriirnay inuu ku biiri karo laakiin maysan u noqon. Inter Milan ayaana ku guuleysatay adeega ciyaaraanka Christian Eriksen inay soo qaadato. sheekooyinka waaweyn ayana waxay kamid ah ciyaaraanka lagu magacaabo Kovian Lakisian wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur. ciyaaraankan ayaa heshiis ama ay kula soo wareegtay kooxda Tottenham Hotspur waxaana lagu qiimeeyaa 35 milyan ayaa lagu qiimeeyaa. sheekooyinkaasi waxaa sidoo kale ka Pablo Mari Arsenal ayuu ku biiray. Arsenal ayaana xaqiijisay daafacan Pablo Mari inuu si rasmi ah ugu yimid garoonka Villa Emirates waxayna ku duulaan tagi doontaa maadaama ay aad dhibaato ugu qabtay waxda daafaca. ugu dambeynna ciyaaraankan ayana la soo wareegtay 6 bilood ayana heshiiskiisa lagu qiimeeyay inuu sii joogi doono silmadana kooxda waqti fiican inuu la sii qaato ciyaaraanka lagu magacaabo Pablo Mari. sheekooyinka lagu weyn waxa kamid ah Danny Rose daafaca reer England ayaa heshiis ama ugu biiray naadiga Newcastle United kadib markii ay isku dhaceen tababarka kooxda ama tababaraha hogaamiye kooxda Tottenham Hotspur Jose Mourinho. Danny Rose waa mid kamid ah daafacyada lambarka 3aad ka ciyaar kooda ugu wanaagsan ee Premier League jooga. ugu dambeynna kooxda Magpies ka Newcastle United ayuu ku biiray Tottenham Hotspur ayuu ka tagay Newcastle ayuuna si rasmi ah ugu biiray. ciyaarahanka lagu magacaabo Ighalo Ighala Manchester United ayuu ku biiray ciyaaraankaasi kooxda Shiinaha lagu magacaabo Shanghai ayuuna waqti fiican la qaadanay ciyaaraanka 30 sano jirkan. ugu dambeynna Premier League ay dib ugu soo laabtay Manchester United ayuuna qayb ka sii ahaan doona. waxyaabo kale emerjan oo Borussia Dortmund ayaa kamid ah Federico Trozian Barcelona ayuu ku biiray. Barcelona ayaa xaqiijisay ciyaaraanka kooxda Braga kaliisiisa xidiga weerarka ugu ciyaara Federico Trozian kaas oo lagu qiimeeyay 26 milyan ayaa lagu qiimeeyaa oo euro ah. waxyaabaha kale ugu waaweyn waxa kamid ah Barcelona waxay sameysay Matteo Fernandes ciyaaraanka lagu magacaabo. ciyaaraankan waxay ka keensatay qadka dhexe ayuu ka ciyaaraa. Barcelona waxay xaqiijisay in ciyaaraankan ilaa iyo bisha Julaayo oo xagaaga dambe uu imaan doono ama ku soo biiri doono falsafada macalinka imika hogaamiye Santian ee kooxda kubadda cagta Barcelona. 25 ciyaaryahan ayayna ahaayeen kuwii saxiixda rasmiga ah dhacay. haddaba daawade haddii aad na daawanayso adiga sidee kula aha suuqa haddaba kooxdaada maxaad u rajeynaysay maxaana ka filaysay maxayna ay ka sameysay suuqa kala iibsiga. haddii kooxdaada ay ku farxad gelisana waana la wadaagi kartaa silmada. haddii aad channelka Goal TV channel aad ku cusub tahay nagu caawi subscribe like iyo share mar walba waxaad ka heli doontaan wararka ugu dambeeya suuqa silmada ciyaaraha dalkeena ka dhacay horyaalka taariikha ciyaartoyda dibadda warbixinada dibadda iyo silmada wax walba oo qoseeya sportska ayaan halkan ka daawan doontaa. maasiridiin waxaad Fattax Abdirashiid Abu Kanaani nabadino.